عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقالكينا maanta waxaan ugu talagalnay inaan ku soo gudbino xog ku saabsan barnaamijkii talo bixinta ee aan ku soo qaadan jirnay alaabo dhiirigelinta bulshada. barnaamijkaas waa ku hor inoogu soo socday. maanta waxaan diiradda ku saari doonaa insha Allah qodob aad u muhiim ah. qodob koowaad waa sida qofku uu ku dhisi karo kalsoonida naftiisa, iyo sidoo kale qodobka labaad ee aan ku soo qaadan doono ah in qofku uu isbedel sameeyo, maadaama qof bilaadan yahay cimrigiisu inuu isbedelayo, isagana loo baahan yahay inuu isbedel sameeyo. haddaan ku hormarno qodobka kalsoonida nafta ah. kalsoonida nafta in qofku uu dhiso kalsoonidiisa waa qodob aad iyo aad u muhiim ah. macnaheedu waa maxay? waa in qofku uu awood u leeyahay inuu qaato go'aamada naftiisa ka soo baxayo. macnaheeda ayada sidoo kale waxaa waye in naftaada uusan qofna go-aankeeda uusan gacanta ugu jirin. dhan kasta ee naftaada inaad adigu gacantaad ku hayso. taas waxay keenaysaa inaad gaarto isku filnaansho, adigu aad isku filan tahay naftaada. wax kastoo aad u baahan tahay in adiga qabsan karto, go-aan kasta aad u baahan tahay in adigu aad qaadan karto. sidaas si lamid ah, kalsoonidaas haddii ay ku gasho waxaad awood u yeelanaysaa inaad samayso waxa la yidhaahdo isbedel, oo aad iska beddesho sidaadii hore. waayo awal haddii aad kalsoonin lahayn wixii go-aana aad qaadanayso dadkaad weydiin jirtay, dadka waxay ku dhahaan baad qaadan jirtay. sidaas si lamid ah, haddii aad u baahato naftaada inaad wax kusoo kordhiso, qof aad kaashataa u baahnay. laakiin haddii aad kalsooni ku qaado naftaada oo kalsooni aad yeelato, cidina ugama baahnid ay ku gacanaysaa 24 saac. sidaas awadeed kalsoonida waxaa jira marka waxaa jira kalsoonida tallaabooyin qofka haddii uu qaado uu ku dhisi karo kalsoonidiisa. waxaan isleenahay marka tillaabada koowaad haddaan dhahno oo qofku uu ku dhisi karo kalsoonidiisa waa in qofku uu joojiyaa had iyo jeer cabashada. cabashada waa shay inta badan bulshada dhexdeeda ka jiro. inaad in badan cabato dhibaato ayay waxay ku tahay dadka kugu hareeraysan. waxaa jiro dad kaa dhib badan haddana kaa cabasho yar oo ka adkaysi badan. inaad 24 saac noqoto qof cabasho badan waxaana igu dhacay saana noqday dhahayo, taas macnaheeda waxaa waaye ma lihid wax adkaysi ah. dadkana way kugu nacayaan, way kaa fogaanayaan. walow marka u dambeysa ay gaari doonto inaad dhacdo inaad weydo qof cabashadaada aad u soo gudbiso. marka qodobkaas waxaa waaye iska jooji dhibaatooyinka adi ku haysta ee aad dadka badana aad la wadaagayso. taas qofka haddii dadka cabasho badan markii loo soo gudbisto ay kaa fogaanayaan, laakiin haddii aad iska joojiso oo markasta positivekaada aad la wadaagto dadka waad soo jeedinaysaa. taas cagsigeeda. waxyaabaha kale ee qofka kalsoonidiisa dhisi kara waxaa ka mid ah in qofku had iyo jeer uu aqriyo buwaagta ka hadlaysa dhiirigelinta naftiisa. waa inaad heshaa dad ku dhiirigeliyo ama aad akhrisaa buwaag ku dhiirigelinayso. wax naftaada kicinaya dareenkeeda ee kor u qaadaya xamaasadaada waa inaad heshaa. waxaad ka helaysaa in had iyo jeer markaad caajisto, markaad isdhaahdo waxaan ma qaban kartid, ay dareenkaada kiciyaan, isla markaana ay sababto taasi in aad sii dhiirato shaqada inaad si wanaagsan u qaban karto. qodobka kale aan soo qaadanayna wuxuu yahay inaad tagto goobaha waxbarashada iyo sidoo kale inaad ka qayb gasho seminaarada badanaa looga hadlayo waxaa loo yaqaano personal developmentiga ama horumarinta shaqsiga bini'aadinka ah. taasna waxay qayb ka qaadanaysaa inaad goobahaas aad kula kulanto dad aad isku ra'yitiin, isku aragtiin, isku fikirtiin, oo isku kaashataan
halganka loogu jiro nolosha ee ah in guul laga gaaro nolosha. taas marka haddii aad hesho asxaab aad isku fikirtiin aad u kaashato aad iyo aad ay muhiim u tahay. adna waa inaad ku dadaashaa inaad tagto goobaha badanaa aad ka helaysa asxaabta kula fikirka. waxaan kaloo soo qaadan karnaa marka haddii aad damacdo inaad samayso isbeddel isla markaa ayada ee go-aanka uu niyaddaada kusoo dhacay bilow waxbaa dib dhigan. haddii aad dib dhigato waxay keenaysaa inaad hilmaanto ama aad ka caajisto. waxaad joogtaa maanta beriwa inaad noolaan in kale ka waratid. marka go-aanka maanta kugu soo dhacay gaar isla markaana saacadda ayadaa bilow. waxaa jira marka isbeddelkaasna isbeddelka qofka suu u sameynayo waxaa jira laba qodob: qofku inuu dhasho noolaado kadibna uu dhinto, iyo inuu qofku uu dhasho ku noolaado farxad, cizi, sharaf, iyo in asagoo bulshada dhexdeeda magac kale laga maamuuso, la raadiyo la kulankiisa inuu noolaado. saas awadeed labadaas qodob midkaad qaadanayso adiga jeesku xiga waayo. midda marka aan anagu ku dhiirigelinayna dadka si gaar ahna aan diiradda ugu saarayna waxay tahay in qofku noolaado, markuu dhasho noolaado, noloshaas uu ku nool yahayna tahay ku noolaado nolol farxad leh, nolol cizi iyo sharaf leh, nolol bulshada dhexdeeda laga qadariyo ku noolaado. taas waxay ku imaan kartaa marka qofku inuu la yimaado isbeddel. isbeddel macnaheedu waa maxay? dunida waa kusoo korodhay, adaa imaaday, waxaa maqan kaalintaadii. waa in kaalintaadii aad soo buuxiso. waa inaad la imaado wax cusub. wax cusub macnaheedu waa maxay? waa inaad la imaado fikir cusub, waa inaad la imaado hal abuur cusub, waa inaad la imaado oraah wanaagsan. oraahdaas ayada ah bulshada dhexdeeda haddii aad nooshahay haddii aad dhimato waa lagu qadarinaa. marka isbeddelkaas intuu jiro waxaa jira carqalado ka hor imaanayo, dadku niyad jebinayaa jiro, kuwo ku aflagaadeynayaa jiro, kuwo ku caayayaa jiro, kuwo ku qiyaamayaa jiro. dhammaan dadkaas waxaa laga rabaa inaad u jabin, marnaba cadowgaada ha u jabin. u qosol, u dhoola caddee, tus awoodahaaga. marka waxaan kuu dhiirigelinahaa had iyo jeer inaad la imaado isbeddel, inaad la imaado hal abuur cusub, taasoo keenaysa inaad noqoto qof ka gaaro yoolkiisa meel weyn, mustaqbalkana guul weyn ka gaari karo nolosha. hadhowna hadduu dhinto iyo hadduu nool yahaybo oraahdiisa wanaagsan iyo murtidiisa lagu qori doono baal dahaba. maskax kasta ee dunida soo martay iyo il kasta oo dunida wax aqrisabo ay aqrin doonaan oraahdaada iyo fikirkaadana ay arki doonaan sidii dadka adig kaaga horreeyey ee magaca lahaa ee kun oo sano ka hor dunidan wax ku soo kordhiyey ilaa maanta magacyadooda la xuso. si saas camal aad ugu noqoto, adna la imo oraah wanaagsan, fikir wanaagsan iyo hal abuur wanaagsan. waad ku mahadsan tahay daawashada video.